qaybtii labaad ee sheekadii sirtii jaceylkaygii ayaa waxay inoo joogtay. Deeqsan, waxaad moodaa inaad wax iga qarinayso abaayo, bal isdeji, neeftuurka faraha badan iska daay. Anigu waxaan ahay deeq un, qof kale ha ii maleenin. Qaybta saddexaase waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Arinku waa mid cakiran. Deeqsanna kolkii ay damacdo inay deeq u sheegto waxa qalbigeeda ku jiro waa ay awoodi weeday. Isaguna waxaa fajac iyo aan fariir ku noqday waxa ku dhacay gabadha. Deeq, aboowe, hee abaayo, maxaad i dhihi rabtaa? Haa, wax kale ma ahan, maanta cashirkii ayaa igu adkaaday. Waad igu ciyaaraysaa anigu. Abaayo, waxaa ii muuqato inaad wax iga qarinayso. Waan ku baryaa waxa iga qarinin. Anigu waxaan ahay walaalkaaga camal. Wax ii sheeg. Anigu wax waliba oo dhib ah ee ku haysto waan kula xalinaa. Haa, waa balan, waan kula xalinaa abaayo, ii sheeg. Maya aboowe deeq, wax ma jiraan. Kaliya kulankeena ayaan ku faraxsanahay. Wax waliba waan kuu sheegaa. Waad ogtahay inaan adigu wax kaa qarinaynin. Galabkaasi kulanku wuxuu ku soo ilaaday afkii baa juuqda gabay. Deeqsan iyo deeq waa laba qof oo mid waliba kulankaani ujeed gaara ka lahaa, balse qof waliba qofka kale ayuu ka cabsoonayay. Waqtigu waa xilli dambe. Waxaa soo yeeray waa dhabaqa fariin u soo dhacday Deeqsan. Talow yay ka timid fariintaani. Marka hore waan ku salaamay abaayo. Waxaan filayaa inaad caafimaad qabto. Inkastoo aan ka xumahay inaan waqtigaani aan fariin kuu soo diro, haddana ay dantu i baday oo aan ka maarmi waayay inaan fariintaani kula wadaago. Waayo hore waxaa loo yiri waxaad qarsato way ku qarsadaan. Waxaan rabaa inaan kuu sheego abaayo, anigu inaan jacayl kuu qaaday, laakiin uu nasiibku iga hiiliyay. Intii aanan kuu sheegan ka hor ayay waalidkayga ii dooneen gabar aan qaraabanahay. Aniguna waxaan qaatay go'aanka waalidka. Yaa Allah, waa maxay waxaan aan arkayo? Ma indhahayga baa mise waa dhab? Intaas ay inoo joogto daawadayaal qaybta saddexaad ee sheekada sirtii jaceylkaygii.